bismillahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal meel baad joogtaan iyo si walba oo ay tabinteenna ama warkeenna uu idiin soo gaarayo waxaanu jecelnahay inaan idinla wadaagno xaaladihii ugu dambeeyey weeraro dhanka cirka ah ayay ayaa waxaa lagu fuliyey deegaano hoos yimaada tuulada lagu magacaabo xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay war-saxaafadeed ka soo saartay weerar la sheegay ama weerar qorshaysnaa oo ay dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ayaa war-saxaafadka lagu sheegay inay iska kaashadeen weerar lagu bartilmaameedsaday dagaalyahano al-shabaab ah oo ku shirayay ayagoo weliba saxaafadda ama war-saxaafadeedka wasaaradda warfaafinta ay ku xustay in ay ku maleegayaan dhagar kale oo ay shacabka soomaaliyeed la maaganayeen sida wasaaradda warfaafinta beejkeeda ku xustay waxa lagu dhibaateeyey ama lagu dilay laguna qaarijiyey weerar dhanka cirka ah oo ay labada hay-adda nabad sugidda iyo saaxiibada caalamka ay iska kaashadeen ay qudha uga jareen 17 dagaalyahano oo lasii sheegayo in 2 ka mid ah ay ahaayeen horjoogayaal al-shabaab weerarka ayaa waxa uu ka dhacay tuulo hoos timaada ama deegaano hoos yimaada tuulada xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe arrimahan ayaa waxaa lasoo sheegayaa amaba sida baraha bulshada maanta dadka warbaahinta aadka ula socda ay ku arkayeen howlgal dhanka cirka ah oo diyaaradaha droneska ay ku bartilmaameedsanayeen saraakiishan ama dagaalyahanadan 17 ah arrintan ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo maalmo ka hor deegaanka lagu magacaabo ceelguduud xasuuq dhanka cirka ah lagu geystay ama dhegta dhiigga loogu daray niman la sheegay dagaalyahano al-shabaab ah oo weliba gaadiid iyo saanad militariba lagu duqeeyay sida ay wararku ay sheegayaan amaba maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta gudaha ay aad u hadalaysay arrimahani ayaa waxay isbiirsanayaan ayaa waxay keeni karaan in meesha sida wararku ay ama khubarada xagga amniga ay sheegayaan ee meesha ka saaraysa kooxda al-shabaab ayaa waxa u muuqdaan inay gebi ahaanba ay sii leecayaan iyada oo maanta la hadalhayo in kooxda al-shabaab ay la soo xiriireen ganacsato Soomaaliyeed ayagoo weydiistay lacago deyn ah waa markii ugu horeysay taariikhda kooxda al-shabaab oo ay weydiistaan dadka shacabka ama gaar ahaan dadka ganacsatada ah lacago deyn ah maadaama ay ku furan yihiin dagaalo dhan kasta ah kooxda al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ka talinayeen koonfurta Soomaaliya gaar ahaan waxa ay hadda dagaal dhan kasta ah oo kaga socdaa gobolka Hiiraan iyadoo oo maalinnimadii shalay ahaa shir ay yeesheen madaxda ama siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ugu furmay degmada Maxaas lagu go'aamiyay in la sii dardargeliyo iyadoo oo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa Yuusuf Dabageede uu magacaabay xilal muhiim ah oo si amba qaadi kara in meesha ay ka baxaan amaba laga saaro kooxda argagixisada ee al-shabaab gobolka Hiiraan ayaa waxa uu gabi ahaanba hadda u muuqdaa in laga sifeeyay kooxda al-shabaab 80% ama 90 ayaa la oran karaa deegaanada gobolka Hiiraan waa ka madax banaan yihiin kooxda al-shabaab iyada oo 4 bilood la soo dhaafay kooxdan dagaal dhan kasta ah ay isku jireen dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan waliba si gaar ah waxa ay hadalka ama warbaahinada ay u taminayaan beel kamid ah beesha degta gobolka Hiiraan inkastoo ay jiraan beelo Soomaaliyeed ayagana hubka qaatay ayagoo doonaya inay meesha ka saaraan oo hadda waxay u muuqdaan arrimaha socda ama dagaalka socda in beel kasta ama qabaa'il kasta uu doonayo inuu meesha ka saaro ama deegaanadiisa uu ka xoreysto argagixisada al-shabaab ayaa gabi ahaanba dadka Soomaaliyeed u diiday nolosha bini aadamkana caqabad ku ah waxaana arrimahani hadday isbiirsadaan ay keeni karaan in meesha laga saaro guud ahaanba kooxda al-shabaab iyada oo hadda culeysyadii ugu dambeeyay taariikhda kooxda al-shabaab ay wajahayaan waxaa laga jaray isgaarsiintii waxaa laga jaray canshuurihii iyo sakawaadkii ay ka qaadi jireen ganacsatadii Soomaaliyeed waxayna hadda marayaan in deyn ay weydiistaan iyada oo horaantii bishan ay kooxda al-shabaab ganacsatada Soomaaliyeed ay weydiisanayeen in ay sakawaadka soo hormariyaan qaar ka mid ah ganacsatada ayaa waxaa la sheegay in ay gaashaanka u durureen inay u hoggaansamaan amarka al-shabaab taasi ayaa waxay muujinaysaa sida khubarada xagga amniga ay sheegayaan in kooxda al-shabaab markaani dadka Soomaaliyeed ay u muuqdaan in ay diidi karaan amarkooda ayadoo la xasuusto ama maanka ama maskaxda lagu hayo in sanadihii ugu dambeeyay
hadalka ama amarka ka soo baxa al-shabaab uu ka cuslaa midka dowladda oo dowladda federaalka Soomaaliya amarkeeda wax micno ah ama wax amar meel ka shaqeeya muusan ahayn laakiin hadda al-shabaab amarkoodii waa la jebiyey shacabkana markaan al-shabaab way diideen in ay u hoggaansamaan oo waxaad moodaa in ganacsatada ku dhowda ay gaashaanka u dururayaan ama ayba iska diidayaan inay bixiyaan canshuur laga qaadan jiray 15 sano lasoo dhaafay al-shabaab ayaa gobolkoodii sii dhacayaan mana muuqato sababo ay ku sii noolaan karaan ama ay ku sii jiri karaan iyada oo arrimahan ay keeni karaan in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay ku sii dhiiradaan iyada oo shacabka ama dadka degan gobolka Hiiraan ay noqdeen dadkii ugu horeeyay ee ku dhiiraday inay hubka ula baxaan dhagta dhiig u daraan kooxda al-shabaab guud ahaan arrimahan waxa ay imaanayaan iyada oo caqabado iyo culeysyo fara badan la saarayo kooxdan al-shabaab oo runtii halis iyo khatar ku ah jiritaanka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed oo 15 sano la soo dhaafay dhibaato waaweyn ka geystay dalka Soomaaliya gaar ahaanna bartilmaameedsaday dadka indhaha u ahaa ama dadka shacabka kuwooda ugu muhiimsanaa kooxda al-shabaab ee laayeen waxaa la soo sheegayaa in kooxda al-shabaab ay dadka ay xataa zakawaadka ama ay ka qaadaan canshuurta ay ku bartilmaameedsan jireen dhowr siyaabood iyada oo ay toogasho iyo si kama ah ay ku dili jireen oo qaraxyada xataa ay maleegayaan ayaa waxaa la dhihi jiray ama ka imaan jireen inay ay ku dhintaan dad ay canshuurta ama zakawaadka ay ka qaadan jireen taas ayaa waxay muujinaysaa in kooxdani aysan kala jecleen nolosha bini'aadamka ah oo xataa ciddii ayada ay u aragto in ay ka hor timaado qudha ka jira jirta laakiin hadda godkoodii baa biyo ugu soo galay xaalkuna waa ku xun yahay mana muuqato in ay sii jiri karaan ama ay sii noolaan karaan wixii arrimahaas ku saabsan iyo guud ahaanba dagaaladaasi shabeellada dhexe iyo hiiraan aadka uga socda halkan ayaad kala socon doontaan halkan isha ku hay waadna ku mahadsantihiin dhegeysigiina